الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سجال إيا صدونات إيو جبدي دروستي بش رمضان إيو دردارن كي كدن بي بإذن الله تبارك وتعالى وحينو دن بيسي علامات كاللغو قرطو إن لا أقبل عمل كاغي وحان سوق هذا إن اللبا علامة كو وحيهد إخلاص لبو وحيهد إن معصية آد نعضو ikhlaaska waxaa ku hoos jiray inuu sheego ilaahay dartiina loola jeedo rasuulkana looga dayanayo sala allahu calayhi waalihi wasalam qodobka labaadna wuxuu ahaa inaad macsiyada aada nacdo daacadana aada jeclaato waa labo kan saddexaad waxaa weeye mudaawamatuka cala alcamali asaalix camalka wanaagsan inaad daa'imto oo joogtayso marka qofka muslimka waxaa la yidhaahdaa haddii camalka wanaagsan uu joogteeyo ood aragto isagoo daa'im ah taasi waa calaamad lagu garto camalkaaga in la aqbalay waana juz iyo qayb ka mid a thawaabkii iyo xasanadii wanaaggii aad samaysay salafka qaarkood waxay odhan jireen thawaabu lxasanati alxasanatu bacdaha xasanada thawaabkeeda iyo midhaheedu xasanadu waa wanaagga aad samaysay midhihiisu waa inaad aragto haddana wanaag kale oo kii ka dambeeya waa inagii dhahayna ukhti bay dhahaysa mid walba midda kale u yeedhanaysaa marka qofkii camal fala xasana wanaag huma atbacaha bixasana wanaag kala raaciya waxay noqonaysaa taasi calaamad in camalkaagii la aqbalay taas marka mithaal waxay kugu noqon soon baad soomay bishii ramadaan markii uu dhammaaday maaha macnaheedu inuu soon oo dhani dhammaaday shawaalkii ma soontay 6dii beri ee lagaa rabay ayib ma sii wadi doontaayoo isniin iyo khamiis iyo wax ma ka soomi doontaa 3 maalmood ee cadcad ee bisha 13 14 14 15 bil walbo bilaa islaam ku jira ma soomi rabtaa marka arintaa ma sii wadaysaa taa haddaad sii wado waxay daliil u tahay in la aqbalay soonkaagii biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ayib waskadaalika assalaa salaadiina waa la mid haddii salaadii aad taraawiixdii meesha ka baxday tahajud baa jira wuxuuna ka tukataa 3 ragcadoodna allaha ka yeela wax ma wadaa marka waa calaamad iyaduna ku tusinaysa inaad wax wado waxay yidhahdeen culimadu haddaad aragto qofku isagoo wixii joojiyo ka wada tegayna waa calaamad ku tusinaysa inaan laga aqbalinba kii weynaa ba iyaduna iyo ciyaadan billaah bay u tahay qodobka afraadna waa tadakuruka lilaakhira waa inaad aakhira xusuusnaato marka calaamaadka qabuulka waxaa ka mid ah in qalbigaagu aakhira mar walba xusuusan yahay ood og tahay inuu tahay qofku wuquufuhu bayna yaday illaahi tabaaraka wa tacaala lilxisaab inaad alla subxaanahu wa tacaala hortiisa istaagi doonto waa inuu qofku ku xisaabtamo waxaa la weydiiyey fudayl ibnu ciyaad baa nin wuxuu weydiiyey niyo wuxuu ihi kam atat calayka min asiniin meeqa sanaad jirtaa war meeqa sanaa horta intaad da-daada kugu yimid intaad joogtay meeqa sanaa kusoo martay wuxuu ihi 60 sana 60 sana ayaa isoo martay wuxuu ihi fa anta mundu 60 sana tasiiru ilaa rabbika ma 60 sanaad xagga alla usii socotay oo jidkan iyo wadadan haysay alla dhowaa xilliga aad gaari lahayd rabbi mar dhow baad gaari doontaa ninkiibaa marka intuu naxay baa wuxuu ihi yaa abaa caliy inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun oo miyuu dhow yahay waqtigan alla gaadhayo fudayl ibnu ciyaad baa wuxuu ku yidhi taclam maa taquul ma garanaysaa waxaad dhahayso inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun macnaheeda ma taqaanaa wuxuu yihi waxaan idhi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun fudayl baa wuxuu ihi tafsiirkeeda ma taqaanaa wuxuu yihi maya ii fasir marka abaa cali oo ii fasir wuxuu ku yidhi qowluka oraahda aad leedahay inaa lilaah waa adigoo yidhi ana lilaahi cabdun anigu ilaahay baan addoon u ahay wa ana ila allaahi raajicuun aniguna ilaahay baan u laaban marka wuxuu ihi qofka ogaada inuu yahay addoon alleh oo haddana ogaada inuu alla u laaban ha ogaado inuu qofkaasi mawquuf yahay oo la istaajin doono qiyaamada meel qofka ogaada in la istaajiyana ha ogaado inuu yahay mas-uul su-aale in la weydiin doono questions baa sugaya oo la weydiin doona qofka ogaada in su-aale la weydiina su-aasha ha u diyaar garooba jawaabteedii ha diyaarsado markaasaa ninkii intuu sii naxay baa wuxuu ihi maxay tahay marka xeeladda arrintaa looga badbaadi karaayo waa maxay wuxuu ihi waa yar tahay wax fudud wey haddaa rabto waa wax sahlan wuxuu ihi waa maxay ii sheeg wuxuu ihi tuxsinu fiima baqiya yugfaru laka maa madaa wamaa baqiya waa arrin cajab badan ii sheeg bur wuxuu ihi waxaad kaga badbaadaa wixii kuu dhiman cimrigaaga wanaag samee dadaal inta kuu dhiman
intii horena waa lagu dhaafi, inta dambena waa lagu dhaafi biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. laakiin wuxuu yihi haddaad adigu xumaan la timaado inta dhiman, cimrigaaga inta dhiman haddaad la timaado, inta dhimanna waa laguu qaban, intii horena waa laguu qaban. marka waa dardaaran aad u cajab badan. kelimatu inagu waxaan iska dhaha inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun, qofku afkiisa saasuu iskaga, laakiin macnaheeda ma taqaana. isweydii macnahan uu ereygu xambaarsan yahay. waxaa kamid a qodobka shanaad oo isagana calaamaadka in lagu aqbalay camalkaagii lagu garto waa inshiraaxu sadri lcibaada, in qalbigaagu cibaadadii uu inshiraax waxaa weye inood farxad aad dareemayso, shucuur biladati daaca, daacada macaankeedii, xalaawatul iimaan ma dareemaysaa. waa inuu qofku dareemo macaan cibaadadu kuu leedahay, lada naga saare iyo naga tuura iyo na dhaafiya waa inayna arrintu ahayn, war salaada naga rida, sidaas inay noqonina waa inaad meelaad ku macaansato, qurato caynkaagii la yeelay waa inay noqoto. asalu llaha tabaaraka wa tacaala, waxaan ilaahay weydiisanayaa lana walakum athabaata cala daaca, inuu ilaahay daacada inagu sugo, inuu ina ilaaliyo, inuu ina madgeliyo, inuu ina cafiyo, inuu xusnu lkhaatimana inagu arsaaqo. sala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wasaxbi ajmaciin.